jooga dibaddu indalkeenu hodayahay malama dareemine marka dirirku yaad helo kaalay soo dalxiiso kaalay daltabyada iskaga biye kaalay soo dalxiiso kaalay daltabyada iskaga biye. Hej, mitt namn är Barkad. Jag bor egentligen i Sverige fast mina föräldrar är uppväxta här. Och här det är ett ställe som heter Gaan Libah. Och jag rekommenderar alla turister att komma hit någon gång. Jag rekommenderar det väldigt starkt. برقب سوقلو مرق صار كيلو إلا سررها نبدي سماي وسد كيني يسور عين وسنجر لحين سنق الشالي وسيطع قروح لي ولا تشي سورة سندي علولي درمسبيو قصب حلو سيدي والعراد سحن لابو حابو سنشان ولاحين صاحب بيال سو دوادا in badan waan ka maqnaa shaashadaha channelkeena laakiin maanta ayaan dib u soo noqday maanta waxaan ku suganahay laaga sare ee buurta Gaan Libah. Gaan Libah waa buur ka mid ah buuraha ugu caansan Soomaaliland isla markaana ku habboon deegaan dalxiiseed aad iyo aad u qurux badan weeyaan oo dhir aad iyo aad u kala duwan ay ka baxdo waa laag in badan ka sareeyo dhulka ma qiyaasi kara inta fiida uu ka sareeyo dhulka laakiin waxa ku qiyaasi kara meelaha ugu dhaadheer jooga dhulka ee Soomaaliland ku yaala waa meel cimiladeedu aad iyo aad u degan tahay waan ka xumahay maanta qorraxda ayaa aad u kulul laakiin inta badan halkan waxa ka dhacda ciiro ama dhada ayaa ka dacda dhirtuna waa kuwa mar walba green ah Gaan Libah markaad imanayso meel kala duwan ayaa loo soo maraa waxa laga soo beeraa inagu waxaan ka soo beernay deegaanka Dhubato anagoo soo marnay gooda weyn oo wareeg dheer soo marnay gooda marka soo marayso waxa qiyaas ahaan magaalada Dhubato marka soo beedho 84 kilomitir ayay u jirtaa halkan wadaduna waa wada cagaaga oo aad iyo aad u dhib badan isla markaana dadka dalxiisayaasha ay dhib badan ka gaari karto oo maadaama dadku uu dhulku kala dheer yahay godad dooxiyo iyo laagag dhagaxaan raf badan aad soo jiiraysaa hadii Ilaahay ka dhigo laakiin wixii oo dhan waxaad ku ilaawaysaa markaad halkan timaado meel aad iyo aad ugu habboon dalxiiska oo halkan ku taalo Gaan Libah ayaad ku ilaawaysaa deegaan aad iyo aad qurux badan baan joognaa ku soo dhawaada baan leenahay dalkiina hooyo halkan waxaan ugu nimi qurba joog aad iyo aad fara badan isla markaana maadaama xilli samar lagu jiro jawi bedelasho u yimi halkan Xashooga dalka hooyo ku soo dhawaada قربشوك وحليها صدوا هذا دلكيني كان لباح ومال عادي قروح بدن وكوفي عند الحيسته السويدن غير يوروب غير امريكان ليهاي مهوران كيني ايكاليا قربشوك ديبدو indalkeenu hodayahay malama dareemine marka dirirku yaad helo kaalay soo dalxiiso kaalay daltabyada iskaga biye kaalay soo dalxiiso kaalay daltabyada iskaga biye. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بورت ودي أركا. قرصة سلة. كوديب. كاس وديب. كاس وابي. كاس واحد وابي. ها كاس وديب. انت هلكن ugu badan ee xisabka yeelanaya in aad iyo aad ugu badan ها دي ودوعين حسابك يا بير ودوعين waxaan iga diib kale waxaan ciidda kala guuraan ba bilaadu ka wala beermay wala beriga hore beriga hore la beero anaga beernay idinka beeray ha soo taleeyahay ingiriiska dhirta ugu badan beer ingiriis way baara ko weyn maarta ko yarna anaga beernay wasaaradda deegaanka Soomaaliya wasaaradda beertaha dalxiisayaasha halkan ka yimaada baliga wara barta ma lagu maata dadka kale go'dan yimaada maalin walba xoogana ay dumaan soo dhaweynaa يبغى سووا دلكوا يكسر دواءنا. دلكوا نبات. دلكوا نبات. هاي. كيف؟ مشيف فات هاي ممكن. كوبا كلات كتير. ما إيه. أنا ما شغالين بيشوي. شغالة مش تربوت كيس. أيوة سعر ديجانك. بورت رواي لالنا ده. ديجانك يرتوى. هاي يرتوى لالنا. كيف ما نو برنا ده. كدافع عالم كهذا وانا يمكن حد له. وعليه. ودلكوا يكسر دواء. تاسا كيف تبرنا موقتي. إذا كبر جيت كن. أنا برنا سوا قطني. وانا شغالنا. ما شاء الله. وين سايا برشونس
magaca adiga سلام حضرس salamaanow daawadayaasha halkan kugu yimaada ku daawan doona muuqaalkaaga soo raaci doona waxaan kaa codsanaya aad iyo aad u soo dhaweyn هذه هذه مسؤول إن شاء الله waa mahadsantahay gurba jooga dibaddu in dalkeennu hodan yahay malama dareemine saaxiibayaal halkan waa meel cidla oo ku taala dusha sare ee buurta gacan libaax keligay ayaa halkan jooga waa kayn aad iyo aad u jaqa halkaasaad ka aragtaan roob ayaa imika ka soo curtay oo roob badan ayaa laga yaabaa saacadaha soo socda insha allah haddii ilaahay ka dhigo inuu buurta ka da'o maadaama uu cirifka hoose ee buurta uu ku da'ayo waqti aad iyo aad u qurux badan ayaan halkan ku qaatay waqtiga intii ugu badnaydna asxaab buurta joogtay iyo dad kala duwan oo qurbaha ka yimi ayaan kula qaatay haddase keligay ayaa jooga dhinaca galbeed ee buurta oo masaafo ku dhow 6 kiiloomitir aan soo lugeeyey imika dib ayaan noqon doona haddii ilaahay ka dhigo maadaama waqtigii jimicsiga dhammaystay ee lugta iyo indhaynta haddii ilaahay ka dhigo waxaan ku noqon doonaa halkii gaarigaygu yaalay kadib waxaanu anbabixi doonaa magaalada hargeysa muuqaalkan oo dhammaystiranna waxaad kala socon doontaa channelkayga aan youtube ku leenahay ee cadceed vlogs insha allah haddii ilaahay ka dhigo muuqaalka markuu soo gaadho mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kaa codsanaya subscribe like iyo comment saarto aad iyo aad baad mahadsantihiin intii aan buurta marayay kan ayaan ku arkay aan hore u arag caleentan leh ilaa maanta waxaan eegay geedka qurjeenka leeyahay inuu meelahan ku yaallo waxaan u malaynayaa inuu geedkan yahay caleemihiisu saa yihiin waan iska socon doonaa insha allah haddii ilaahay ka dhigo waqti aad iyo aad u qurux badan taariikhdeeda meel gaara kaga qormi doontaa ayaan ku qaatay buurta dusheeda aad bay mahadsantihiin kaymuhu aad bay u sanqar badan yihiin wulan socon doonaa insha allah gurba jooga dibaddu in dalkeennu hodan yahay malama dareemine marka dirin buyaad helo kaalay soo dalxiiso kaalay daltabiyada iskaga biye kaalay soo dalxiiso kaalay daltabiyada iskaga biye halkan waxa la geedka wax ku yaalo qurjeenka leeyahay oo leh ma garanaysa sidii ما تعرف هذا ما حاجة ما تعرف ما تعرف اللي هو الجيل أي إسلامنا وجوابه ما كان لم يرو كذا اللي بيحصل ما شاء الله وقع صاحي أنت كنت قلت معلوم وكل ده لطيفة إلا ما أنت قلت إلا ما تكون بتجي ay khamiista ugu badan yihiin kuma timaada magaalooyinka waaweyn wallahi waxbaad ka dhigataa ilba soo jeed waad soo dalxiisa annaguna maantana ku dalxiisa halkaaga marka dirin buyaad helo kaalay soo dalxiiso kaalay daltabiyada iskaga biye kaalay soo dalxiiso kaalay daltabiyada iskaga biye laagan markaad soo fuusho waxaad arkaysaa buuro aad iyo aad u fara badan isla markaana intaasoo buurood iyo intaasoo laag iyo intaasoo fiid oo isa sii daba yaallo kala duwan waxa halkaa ka sii cadcadoo dhan waa dooxyada biyaha buurtan ka saara isla markaana geeya badda ku shuba haddii ilaahay ka dhigo dooxyadaa waaweyn waa dooxyo aad iyo aad u waaweyn isla markaana intooda badan ah dooxyo durdurro ah oo doog iyo abaar aan kala gurin weeyaan maadaama buurtu ay ku fadhido aquafer aad iyo aad u weyn oo ay biyaha ku shubto biyaha ka soo gunta hoose ee buurta ayaa dooxyadan durdur ka dhigay gu iyo abaarna waa durdurrada sidaad ka aragteen deegaanka lafaruug oo ah deegaanada ugu badan ee halkan ay durdurrada uga yimaadaan amazing view Hi. barkhad You're welcome. I recommend all people to come here. yeah It's very good. it's very Trust me. good place gacan libaax Yeah. it's very good The place name is Gaan Libah. gacan libaax yes You can see. yeah thank you wadayaal halkan waa fikta sare ee buurta gacan libaax
waa hoolkii oo mujaahid lixle ka talin jiray say ii sheegeen dhalinyar fara badan iyo faamiliyo iyo asxaab dad qurbaha ka yimi u badan ayaa halkan waqtigooda ku qaadanaya qaar ka mid a ayaa ii ogolaaday inaan su-aale ka weydiiyo waa soo dhawow adigu waan dhawey walaal magacaa walaal mahodan baa leena hodanay halkaad ka soo safartay walaal Sweden baan ka soo safran Sweden baad ka timi haa socodkana waxaa ka timi magaalada Hargeysa mise Hargeysaan ka soo Hargeysa haa halkan intaad joogtay waxaan joogay 3 maalmood 3 maalmood baad halkan ku qaadatay haa sababta ugu weyn aad halkan u timi maxay tahay jawiga degan ee quruxda badan leh iyo naacawda iyo iyo waxyaabo badan oo dalxiiska u fiican oo marka family baad halkan ku timaadeen mise aniga kaliya carruurtayda baan nimid mise caruuraad godatay afar caruura haa afartaba Sweden baad kala timi afarta Sweden ba ku dhasheen oo kale oo sababta iyagoo Sweden ku dhashay aad halkan u keentay maxay tahay walaal Sweden way ku dhasheen laakiin ma laha haye laakiin halka ay lahayn waa halkan waan gartay marka dalkooda in la carruurta la maalgeliyo wax kasta kaaga baxaane ها qarashku marka hooyadu inta Sweden ka soo safrisa carruur ay halkan keenayso ها ma sahlana xagga qarashka dhaqaalaha waska garan kartaa laakiin haddana inay wax kasta ku qaadatay ها hooyadu keento ayaan kula talin lahaa carruurta halkan oo ay carruurta dalkii bartaan si haddii halkaas oo kale dalkeeni maaha ها xataa wax uga dhacaan ها ama ka bax lagu ama dhibi kaaga qabsato si aad halkan u yaqaanaan carruurtaadi dhaqankii waan gartay oo dawla qabsan karaan ها xaggaana ula qabsan karaan marka haddii ugu yaraan haddii aad kari karto waa inaad labadii samarba mar ها ay carruurta la keenaan kula talin lahaa waalidiinta والدينتا waa halkan muhiim ku dalka hooyana ها halkan hodanay inta joogtay amaad Somaliland joogtay goobo kale oo dalxiis aad tagteen ma jirtaa haa waan tagnay halkaad tagteen waxaanu tagnay berbera berbera waxaanu tagnay bullaxaar walaxaarna waa tagteen waxaanu tagnay lughaya lughayana waa tagteen waxaanu tagnay Hargeysa iyo inta dhexeeyo dhulkaana waanu tagnay aad iyo aad baad iminkana ilaa wajaale iyo baa noo dhiman gabiilay ما شاء الله انت دولك مرسين ما halkan buurtan gacan libaaxa joogteen wax idin dhibaateeya ama idin fadqaleeya ama nabadgelyo darrada lid ku ah nabadgelyada lid ku ah aad aragteen ma jiraan may waa dhulku waa nabadgelyo may anagoo ka nimi xaggaas shisheeyo ilaa Yurub ilaa dhulkaas oo dhan soo marnay ha dhulkii aan marayna Yurub un bay la mid tahay haddana kaba si ammaan badnayn meelaha qaarkood waan gartaa marka maanaan ku aragdee dad ka waran dadka deegaankan buurta gacan libaax ee ku dhaqan say idin soo dhaweeyeen aad iyo aad cidin lama hadal waxna dhiba iyo waxna dhibaateeyo tona maanaan arkin marka dadka daafaha dunida ka daawanaya ee imika ama wadankii aad ka timaadeen jooga ama wadamada kale ee qurbaha jooga maxaad kula talin lahayd marka ugu dambeysay kelmadaada ugu dambeysay adoo waxaan kula talin lahaa wadankeena waxa la iska maqalay yaryar dhacdhaca wax weyn maaha haye wadankeena waa aamin haye halka banaanka hadaad seexato meel waliba waa hooyada iyo aabaha waan gartaa marka aamin darraba kama jirtaba maba meel aad u dhalatay aamin darraba kuguma heli kartaba laakiin meel aan u dhalanin oona dee ka xataa waxa kugu dhacayo wax qofka ku dilaya ka kudeynay midna aanad kala garanayn dawaa qurbaha halkaas aamin darra taalo imse jeer ayaad laakiin halkan wadanka imse jeer baad ayaad wallahi anigu dadka xoog u yimaada baan ahay si istaba joog aan u yimaada siistaba joogaad carruurtana kolba waxaan soo kaxayn karo ayaad soo kaxay ayaan soo kaxeeya muddaba 3 sano ugu dambeysay xoog baan u yimid inamadana adaa dhalay labadan anaa dhalay iyo labada hablood iyo labadan habloodba dadka qurbaha ka yimi ee deegaankan kula kulanteen dad intee leeg weeyaan allo dad badan baa yimi sanadkan dad badan baa yimi ma sha Allah soona bata baan leeyahay ma sha Allah aad buu mahadsantahay gurba jooga dibadu in dalkeenu hodan yahay halama dareemine marka dirir buyaad helo kaalay soo dalxiiso kaalay daltabyada iskaga biyo saaxiibayaal waxaan weli soconaynaa dusha sare ee buurta gacan libaax waa sidan buurta dusheeda gacan libaax waa fig aad iyo aad u dheer isla markaana meelaha kale ee Somaliland ka dhir badan oo ka cimilo duwan markastana greenkan bay tahay oo dhirtu wada cagaar roobkuna si yaro fudud ayuu uga daa halkan sababtoo ah joogeeda ayaa aad iyo aad u sareeya cimilada meeshan aad iyo aad bay u qabowdahay mar walba sida inta badan jirta waxa ka dhacda ceeryaan ama dhada ayaa ka daada oo maanta ay qorraxdu aad iyo aad u kulushahay
ma jirto laakiin sida dadka deegaanku ay sheegeen mar walba gacan libaax waxaa ka daada dhado waddada aad arkaysaan waa wadda lugeed dadka ayaa mara halkan aad arkaysaanna baabuurta ayaa marta ku soo dhawaaw gacan libaax geedkaa magacii khaalidow waxaa la yidhahdaa dacar weeye dacar taa ma haddee lawyada weeye maaha magacyada ku qoran qaar badan haddii laga baaro maaha wallaahi billah meel lagu qoray anaa ku qoray marar badan aniga maaha anaa ku tusayay kugu qorayaan mari haye 2019 sidaad halkan ka arkaysaan buurta dusheeda sare si aan connectionka loo waayin ama telecommunicationka ama isgaadhsiinta waxaa laga taagay 2 taawar oo shirkadaha kala duwan isgaadhsiintu ay halkan ka taageen si dadka halkan yimaada ay markiiba isgaadhsiin heli karaan ama internet xawaarihiisu sarreeyo aad halkan ka heli karto labada shirkadood ee Samtel iyo Telesom ayaa iyaguna dadaal badan ku bixiyay si ay dadka dalxiisayaasha ay halkan uga helaan isgaadhsiin fiican sidaad halkan ka arkaysaan waxaa ka taagan buurta dusheeda boodhkan yar oo ay ku qoran tahay ku soo dhawoow buurta gacan libaax buurta dalxiiska ee gacan libaax halkan falaadhan waxa ku tusaysaa falaadha halkan ku qoran waxa ku tusaysaa laagii ama gebyankii dheeraa oo ay halkaa ka muuqanayaan magaalooyin fara badan halkaas buu ku beegan yahay gebyanka dhirtan dabadeeda imka markaan ka wareego dhirta dabadeeda halkan baad ka arki doontaan insha allah markaa la socda saaxiibayaal halkan waa guryihii ingiriisku u deganaa waa sidan kan waa qol ka mid a qolalkii ingiriisku deganaa ee ku yaalla buurta gacan libaax waa kuwan guryahan ayaa ku yaalla figta sare ee buurta meesha aad iyo aad dhireen aad u badan baa ka muuqata oo waxa aad loogu beeray geedkaas oo ah geed baxrasaaf ah isla markaana geed adkaysi u leh cimilo kasta iyo kulayl kasta ayaa ah waddooyinka ka baxa waa kuwan maanta waxaan joognaa buurtii gacan libaax weliba siiba laageedii buurta gacan libaax waa meelaha ugu qurux badan buuraha Soomaalida intaan kulli horta arkay meesha ugu qurux badan aan arkay weeye marka daalo laga yimaado talabaad xun meesha tan tahay waa buur aad u qurux badan siiba imika xaggan hadda joogtid laagan waxa kaaga muuqanaya magaalooyin badan abdaal la farrugo halka hoose kaaga sii muuqanaysa inkastoo aad u qurux badan tahay haddana waxaa jirta dhib wada la'aan oo wada xumaa meesha 100 kilomitir jitaad u soconaysaa laga yaabaa inaad 4 saacadood meel u socotid marka waa buur aad u qurux badan oo u baahan mustaqbalka insha Allah in laga faa'iideysto meel dalxiis iyo waxa laga dhigo